راح كره لوري يتوري كي يقومر بي عدت يري wardegdega dhulkii jaamacadda ummadda oo saaka lagu kala baxay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dhul boobkii lagu eedeynayay oo dhaafo guryaha dadku deganaayeen laakiin uu marayo goobaha waxbarashada waxaan kula wadaagi doonaa sheekada dhulkan iyo xilka qaadistii dhowaan lagu sameeyay guddoomiyaha jaamacadda ummadda oo banaanka timid xaqiiqada dhabta ee ku saabsan haddaba muxuu sababsaday guddoomiyaha hore ninka la magacaabay maxaan ka naqaanaa durbadiba fulinta hawshan isagoo aan xilka la wareegin maxay ka dhigan tahay waxaan kula wadaagi doonaa xog iyo xaqiiqooyin rasmi ah ku saabsan daawade marka hore soo ugu soo biiray isla markaana ka mid noqon saaxiibadan ugu xiran muuqaalka kale gareer share gareer si wada asxaabtada taana qaybta faalada nugreba ku maasan tahay daawasha la jaan qaadka warkeena waa hagaag waxaan ku bilaabaya sida dhowr jeer oo hore baraha bulshada ka daawateen dad badan oo ka cabanaya in guryo dad danyar ay degan yihiin haddii aad ku aragtay isla markaana sidoo kale si weyn kaga cabanaya markan wax kasta waa isla soo dhaafay guryada degan iyo sidoo kale goobo marasu degan tahay laakiin waxay maraysaa imikada tan goobaha waxbarashada dalka saakay aroortii hore waxaa cagaftii dawladdu ay ka adeegatay dhulka jaamacadda ummadda ee u dhaxeeya X Control iyo sidoo kale xanta dheer ee magaalada Muqdisho caasimada dalka isla markaana loo yaqaanay jaamacadda Gaheer waa lagu kala baxay dhulkaasi guud ahaantiisa dhulka ayaa la simay ardaadiqa ayaana laga dhigay halkaasi waxaa la sheegay in la burburiyay isla markaana sidoo kale saaka cagaftii ka adeegatay iyadoo la sheegay halkaasi in laga iibiyay dad ganacsata isla markaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud si aad ugu dhow xilligiisii ololaha doorashadana kaalin muuqatay ka soo siiyay inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya dhulkan dartiisa ayaa maalmo kor waxa shaqada looga ceeriyay isla markaana xilka looga qaaday guddoomiyaha jaamacadda Professor Xasan Gacal kadib markii uu kor yimid boobka lagu hayo dhulkaasi sida muuqaalo ama andhe warqado lagu baayay baraha bulshada ay muujinayaan Professor Gacal ayaa dhulkan in la iibiyo si weyn kaga soo horjeeday waxaana jirta warqad digniina oo soo saaray taasi oo si weyn uga cabtay ama ugu difaacay in dhulka la bobo laakiin isaga ayaa xilka laga qaaday ka gadaal wareegtar dheer oo ka soo baxday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana lagu bedelay nin kamid ah ardayda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku xigeenna ka ahaa jaamacadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud shaarka ugu badan oo ka yahay simad dad badan ayaa waxay leeyihiin haddii awal hore arki jirta ama kolkii sii horeysay la arki jiray dadka shacabka oo laga kicinayo guryaha ama goobaha loo yaqaano ama goobaha hay'adaha kala duwan ee dawladdu ay leeyihiin hadda waxay maraysaa goobaha waxbarashada dalka horay way u yareed in goobo waxbarasho oo dalka la boobo laakiin waxaa sidoo kale dhacday in mar sii horeysay la boobay mid ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho caasimada dalka gaar ahaan iskuulka loo yaqaano Ilaas halkaasi oo dhalinyarta ama ardayda dhigata iyo sidoo kale macallimiintu si weyn baraha bulshada kaga soo muuqdaan iyagoo ka cabanaya dawladda Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo maamulkiisa Muqdisho markii la joogo waxa ugu badan ama ugu weyn ee lagu eedeeyo waa in dhul boobku xarkaha goosta isla markaana dhowr jeer oo kala duwan la burburiyay goobo dad shacab ay deganaayeen kuna dhaqnaayeen oo ku yaala magaalada Muqdisho caasimada dalka sidaa wareegta adigu qaybta falaad aritaan ugu muuqaalka la sii wada asxaabta bogana soo follow garay oo ku maasan tahay daawashada jaan qaadka wararkeena nabadgelyo oo nabadgelyo kula tahay amaana Allah